football isha wararka ciyaaraha gudaha ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha door sheekooyinkiisa maanta waxa ugu waaweyn MCC oo wili ka quusan Don Crosty Alex Faisal Hassan Hashi iyo Hassan Santos oo qaranka looga yeeray yaa laga saaray liiska qaranka Xasaasi iyo Mahadshino maxay tahay sababta Kate Itrabur u yihiin la ciyaaray horyaalka heerka koobaad ee Soomaaliya Premier League dekada oo wadada guulaha ku soo laabatay maxaa laga bartay guushii shalay ay jay ka gaareen dekadaha wax walba oo laga soo diiwaan galiyay kulankii shalay ayaa barnaamij ku soo qaadan doonaa kulanka maanta jira Elman VS Midnimo maxaad ugu baahan tahay kulankaasi horyaalka heerka labaad ee Serie B oo isna shalay la ciyaaray Jazeera Sports Club oo guul raaxo leh gaartay maanta yaa ciyaaraya hogaamiyaashu badroolka ay la ciyaarayaan horyaalka heerka labaad ee Serie B wax walba oo ciyaaraha ku saabsan ayaa barnaamij ku soo qaadan doonaa warsamadii cagta xaaji aniga oo daaray barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa wararka ciyaaraha maanta ugu waaweyn ciyaaraha waxyaabaha maanta ugu waaweyn waxaa ka mid ah nimankii MCC wili kama quusan in Alex mar uun u soo laabto u dhiilo sababta ku sheegaya ciyaartooyda liiska ee MCC oo hadda xiriirka gudbisan iyo markii ciyaar tabinaysa warqada lagu siinayo leen abka oo dhamaan ciyaartooyda MCC qoreen wixii saytama ku jiro iyo wixii maqan iyo wixii tarbun saaran Alex waa ugu jiraan nimanka Alex waa ugu jiraan Alex duu soo wareero waa laba qof loo bedelaa يعني هوريالك الصومالي waxaa ka jiro ciyaartooyda ajaanibta afar ka badan lagu ma ogolo marka MC iyada afarta ciyaartooy ajaanib haysato hadan Alex uu sii qoran yahay yani hadii Alex la keenay qof kala baxay lamar saaq darad keenteen oo khatar way dhowsiin bixinaysiin haduu Alex maana ama Zikriya iska diraysiin ama Steven iska diraysiin ama Mike Kamara iska diraysiin saasi naqan yani shan ajaanib lagu ogolo hadda marka aragtay liiska ciyaartooyda MCC oo xiriirka u gudbisan mararka wariyaasha ciyaaraha ka tibinayna warqada la siiyo oo ku jiraan leen abka keedleeda tarbunleeda iyo wixii maqan Alex ugu jira Alex liiskaas ugu jira marka nimankii MCC wali Alex kama quusan sababtoo waxay tahay contractin waa ka yaala asigana waxa waaye kooxdu waa jecel yahay hadana meel kale ku bariiseen waa kulay waa imaana ilaa marka MCC wali kama quusan ninka yiraahdo Don Crosty Alex wararka kale ciyaaraha waxa maanta ugu waaweyn Faisal Hassan Hashi iyo Hassan Santos ayaa qaranka looga yeeray MCC ciyaartooyda marka hore loogu yeeray tiraasi korta halka qaar kood ay ka baxeen marka MCC saddex u baxayso sida wararka ay nagu soo gaarayaan marka hore waxay aayeen Banu Said Mani iyo Atoosh aayeen Said Mani dhaawac looga saaray hadda liiska waxa ku soo biiray Hassan Santos iyo ninka yiraahdo Faisal Hassan Hashi Atooshna dhaawac uu qaba kulli haduu fiicnaado bixi doona haduu injury u jiraan waa joogi doona marka MCC Said markuu dhaawac looga saaray Hassan Tosi waxa ku soo biiran iyo Faisal Hassan Hashi horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya Premier League bari ayuu si rasmi u xirmi doonaa marka Faisal Hassan Hashi iyo Hassan Tos ayaa qaranka looga yeeray Banun waa ku jira Atoosh dhaawac uu qabaa laga yaabay inuu baxo laga yaabay inuu haro sidoo kale marka qarankana qorshihiisu waa iska gabagabo liiska ciyaartooyda bixis in la soo saaro bisa dhiman hebel waa ku jira oo bixraba hebel ma laga raabay wax iswii jiraan maadaama kulanka berito geeska Afrika iyo Raasal ciyaarayaan oo labada kooxood ciyaartooy national team hadda loo wacaysan ku jirin maanta ay dhamaanayaan ama hadaysan maanta galabta bixin bariye baxayaan nimankii xulka qaranka Soomaaliya marka waqtina waan hayaayo 12 bari camal ka dhiman kulanka dhan 12 bari ka dhiman hal kulan baashala iyo kulanka Cumaan in la soo ciyaaran waa la rabaa Xasan Cabdi Nuur Geesi Xasaasi iyo Mahadshino ayaa dad badan isweydiinayaan war nimanka maxay ka leeyihiin nimanka maxaa leen loo sii waa war nimanka dadka ciyaaraha falanqeeyo taageerayaashu kore wax ka arkaan laakiin mararka qaar waxa jiri kara wax uu macalinka arko waa wax iska cad oo dadka ciyaaraha yaqaanana ay ogaan karaan ciyaaryahanka si walba uu laacibsan yahay haduusan trainingkiisa joogto ahayn waxa waaye mushkiladana qanay naadiga horseed oo kamid ah naadiyada ciyaartooyda ugu badan national team haysato ama ciyaartooyda ugu wanaagsan dalka haysato macallin Abdi Xamiid wuxuu leeyahay ciyaaryahan caalamiyeed gambis maalin dhaaf u imaanay iyo ciyaaryahan si joogto caalamiyeed u imaanay adata isku mid ku manqanayaan marka waxa ugu badan ciyaartooyda hadda tarbuunka loo saaro horseed oo kaliya ma kooxaha dhan ciyaaryahan qaab ciyaareed fiican ku jiro oo tarbuun la saaray directed shanta maalin ama lixda maalin la caalamiiteenayo
لو ما لو جنبي عمل واحد ما أنت تجي بريء تجي هل ما أحكشني إنه هل ما أنا جنبس أحكشني مروفة مسألة لكن معناه كوا حساب سنوات مركا حساس بيلو كم وقتها بحوجة هيلي باكوري حساس هيلي باكوري نين عالميتين هتفير دي باكو علنية عبد الكريم عبد الله قواي مركو وكإيمان أي تركي يهدا كافريك الليلوا قواي مركي هرسوت كان سنة أو ترك لكينا هيلي باسارنا هو عيلنا أسي معانم كسليمان أين قواي هيلي باسارنا هذا فيري قواي يسوق لابتي يعني توبركي جوكتو قاطع هيلي كوا كدق هذا حساس هيلي بكر مركا ما بنا دادعنيسين nin oo aalamiinta joogto u tago aasas oo ciilay mana dhaadhicinaysin marka waxa uu weyn ee ma Abdixamiid uu qeexaya marka weynsid hebel maxaa uu fiican yahay marka dhaad xuqdaan training-kaas lagu kala baxaa marka dugsiga gambinaar arki jirtay Soomaaliya Soomaaliya waa ka jirtaa aalamiinta gambinaar hadda korna waa idin soo sheegay liis dheer ay idinkaga sheekay ciyaartooy aalamiinta nacab oo taamkii aalamiintada ay wadaan macallimiin 3 saac wala gaaray macallinkii uu tilmaamayeen معلم وقت والجاري ما يقعد من ضدنا إلهي في ترينين وعالميت وجعلين ضدنا ما عالميتين عبين بقى يتوه وين جتوا عاني أو ترين نعب ما أنت كو ما أنا بريوا بسنا إنه صبح ما بلسوا كعكر حنون سنة مدح يورير والولا مركو جيم العيار وينفذ على كلية عياري مركو عالميت مركو جت حنون سنة أو مركو ريال كعيار إنه فتة يشاك هذه مركو وحكلية كوح لوجو كلا صار بك عيارتي بدين وحواي training كواي training لبضع إيمانه كوح ولا مكجرته training لبضع إيمانه كوح ولا مكجرته لين أبى الورية اللي بقول على السي خطر ما تاهي وين عالميتين إيمانه خطر لماذا عالميتين كشيد السواي مركن نبنكي يورزيدها حزاز جرت وارك تمو حزاز حوجه هلي باكوري نيكي ما تشيلنا دارين تسمع كذا بقالين عالميتين جنب سواي ما نضافوا سجى معنا ما نضافوا كمان ما نوع مقيا ما نوع مقيا ما نوع مقيا ما نوع معنا لو بري ما نعلم كلا كتورنا ciyaartooyda basida koox walba way leedahay ciyaartooy aalamiinta diida sababtoo hadda kor 20 ciyaartooy soo qabto aalamiinta diida oo dhibsanayaan dadka qaar kood xuriyalka ma ka ciyaaran waxay u ciyaareen aalamiinta marban kooxaha waaweyn aalamiinta la iska rabaan training ina imaata laga rabaa kooxaha qaar koodna waxay rabaan hadiraasantan oo abjoon ku imaanay meesha kooxda waxa ka buux aalamiinta diida ka buux aalamiinta diidyal badan ka buuxin markoo imaaday kaliya wax loo dhaay abjoon nin aalamiinta imaanin anay miideelay waa iska baxay dad badan kooxda isaga tagay marka macallimiinta qaar kood training ay rabaan inay qof kala saaraan adina waxa imaanay markii bari amal kooxda dheelis maanta amal aalamiinta imaanino macallin inuu ku ildo faarta marka Hazazi iyo Marchino dhanka training kooda liita aalamiinta gambiskooda badan Hazazi waa ka muuqata xoogaa hilibaa kore markan la ciyaaray oo riyaalka heerka koobaad ee Soomaaliya Premier League كده في الشيء عيار حيسة بدنا يا نعضي ديلا كبرت حتى ديلا كبرت كلن كي شلي ودحية كوحا كبرت حتى شيء عيارتي شلي خيبت كوبادي عيارتو حلوك لما اللي بقول يبر 6 إلى 4 دقيقة أنور سيد عالي الشكوندا يا هوغانك عيارتي دكده وديبي الزقوة يا سجول كاس عابي صدن يلح دقيقنا دادر حسن حاجي دادر إن شاء الله أي عيار تقريبا تونيل تكون وحلو كل مري لما قولي يبر أو أيكو جاملين عيارتوي ده كوحدة عط كأمد كده مركي بلا صلاة عبتي قيبت لبعض عيارتم دقيقة عيارتو مركي مريسي قول أي سعرين LLBB جانيو حسن عبتي أياكو بداسي قول وبدلي وحس صوتوري سما كولو لما قول يقول مكان خطي رجيم حدين وهلينا حبدو هلينا لكن سيدتني 9 دقيقة حاجي معلم قول دافع يولي علامتان ليجري سلاش ما ليجري علامتان هوري وحوريات وصول لي نيكلي كابتن عباس امين دول حبسوا لي ابراهيم رستا ولي بعيار دحمرته هرسادي دكده يقدلي علامه عمل وكادلنا ايماد ابراهيم رستا بلا عباس او جبابي marka laawaas waxa الله بوكسك بنانك انت كيشد دول ما دعدا الله marka حاجي معلم ayaa ciyaarta ka dhigay 3 gool iyo gool waqti loo talagal ciyaarta waxay ku soo ilaatay 3 gool iyo gool oo ay dekadaha ku adkaadeen oo dekade waxay ku soo laabatay wadadii guulaha guuldaradii ugu dambeysay geeska Afrika soo gaartay oo waqti dambe loogu shubay marka ciyaartii dekadan xaalkoodu sida ayuu ahaa Anwar Said Al Shakunda ayaa gool dhaliyay taasoo ka dhigan inuu wali doonayo inuu loolan u galo
kala sareynta goolinta horyaalka Soomaaliya Premier League halka Daadir Jalla tan iyo markii dib loo soo laabtay wajiga labaad ee horyaalka isagana uu shabaqa gaar uu gool dhaliyay Haji Mucalim hatosh bedelkiisu naqana Allay waayo xoogaa ula qabsi kadib bandhigiis wacnaa ayuu ku soo laabto shalay gool absolute wuxuu dhaliyo oo caadi ahayn marka shalay nimankii dekada waa raaxaysteen oo waxay la ciyaareen nimankii Kenya ahaa oo ay ka qabsadeen kulanka soo aadan dekada Muqdisho City Club ayay iswajahayaan ciyaar weyn oo xiiso badan oo labada suugayo arki doonaa haddii nimanka MCC isfurdaamiyaan iyo haddii lagu dhagaba ogowse horyaalka maalinta berita ayuu xirmayaa muddo hal isbuuc kadib ayaa la isku soo laaban doonaa dekadiina sidaa ay ku badiso Rashid Alaani uu iska naqday marna uu ku faa marna uu ku ciyaar marka maalin dhaaf uu badinaya maalin dhaaf uu dheelaya maalin waa badinaya maalin waa kule arki doonaa kooxdu wuxuu imaaday iyadoo waji koowaad ee soo wareertay waji labaad kule wax hadda lagu eedo meesha ma yaalaano horyaalka kale ama jarada Daawud kala fiirin doonaa bandhiga uu sameeyay macallin Rashid Alaani oo ah macallinka kooxda kubadda cagta ee dekadaha horeyna gaadiidka u soo yeediyay maanta yaa ciyaari doona horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya Premier League maanta waxaa wada ciyaari doona Elman iyo Midnimo labadan kooxood waliba Elman tan way dhibtay Midnimo aw gadaamow Midnimadan way dhib badan tahay macalimiintii adika horeeyay Midnimo markay arkaan hal ibri ku dhufan Midnimo wayna ka xariin iska dhib badan tahay marka galabtu waa arki doonaa Elman oo wajiga labaad dardar xoogan ku soo gashay wax badan iska soo bedeshay iyo Midnimo oo iyagana ciyaartooy badan soo raac waliba Midnimo qayaan waxay yaqaanaan leen abkooda afar ajnabi waay saddexna Soomaali juu waay toddoba ciyaartooy oo meelaas ka imaata u dhiilus saddex sujuu ah iyo afar ajnabi ah mar toddoba soo gasho mar lix soo gasho hal ajnabi la fariisa Vicente marka la keena marka nimankii Midnimo iska dhib badan yihiin Elman ayay galabta soo wajahayaan reer Elman isjirahe Midnimo da ku soo ogtiin shaqul maal dhaaf ay naqanaysi markaas gadaamo tan iyo wajiga labaad ee horyaalka waa unbeaten lagama adkaanin tan iyo markii wajiga labaad ee horyaalka soo laabtay ama bareejo ama wuxuu tumay argrab arki doonaa Elman iyo Midnimo Football Club Elman aye Elman baku ana hay Elman baku ana hay Elman baku ana hay Elman baku ana hay horyaalka heerka labaad ee Serie B shalay ciyaar xiiso badan ayaa dhacday waxay ciyaartan dhex martay kooxaha kubadda cagta Jasiiris Sports Club iyo Waxool ayaa isku wajahay garoonka jaamacada degmada Hodan ee gobolka Banaadir ciyaartan oo qayb ka ah horyaalka Soomaaliya qaybta koobaad ayay gool dhaliyeen Jazeera waxaase goolkaas dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Xasan Cabdullaahi ciyaaryahanka lambar 17 qaybta koobaad hal ibra lagu kala maray marka soo laabtayna Paco Antoine Frank ayaa ciyaarta dhigay 2-0 halka Xasan Cabdullaahi uu dhaliyay goolka saddexaad marka Xasan Cabdullaahi laba gool dhaliyay iyo Paco Antoine Frank oo goolka saddexaad dhaliyay waxoolna wax gool ama dhalin shal isku dhaxyaacsanayeen hataa waxa u jeedaa Cali Cabdikuus oo dawla geenay muxuu ahay waxba ka maqnaa xitaa kabtan Maxamed Mursala ka maqnaa haddana qaybta ugu dambeysay ama 10 daqiiqo ugu dambeysay fiican u ciyaaray markii ninka lambar 12aad markii Cumar dhaxda loo soo celiyay xoogaa waxay noqdeen inay kubadda haystaan laakiin Jasiiradan shalay aan arkay dhib badan ba waa koox markii ay ku soo weerarayso rabta inay kubadda ku dhamaato goolka kooxda ay u socoto ama foorha mariso ama hasigto ama golaha ka qabto waxay rabaan markii kubadda la soo bilaabo weerarkooda ama socodkooda inuu ku dhamaado gool kale rabaan oo aan dhaxda laga joogsanin oo kubadda laga soo burburin ama foor laga bixin ama corner ama golaha qabsan ama gool noqonaysa marka shal absolute weerarkooda aad u fiicnaa waliba Jasiira Abbas George akeed fadhiyo gadaal ka soo galay qadkooda dhaxo yar yiraahdo Cabdiraxmaan wala Bashaytan wato absolute waa khatar muuse gadaal laga keen marka wajiga hore dadka ay arkay yaani rag kale oo kaleeya fursad la siiyay shooda wajiro tare laga dhalsiinay Cabdiraxmaan biwa mid aan u soo ciyaaray madbacada sanadkii soo dhaafay Serie C ku soo guuleystay u jeed isagana oo difaac laga dhalsiinay marka Jasiira wajiga hore qaab ciyaareedkan ku arkay iyo wajiga labaad qaab ciyaareedkan ku arkay isku mid maaha absolute aad iska soo bedeleen waa koox weerarkooda raba inay ku dhamaado goolkii uu ku dhamaado marka Jasiira shalay 3 ay ku badisay
waana 3 gool iyo Ibrahim Hassan oo 2 gool iyo Paco Anthony Frank oo sii dheereysanaya goolinta horyaalka heerka labaad ee Serie B inta ka bixin waxa maanta wada ciyaari doona kooxaha Batroolka iyo Badbaado iyo Batroolka ayaa iswajahayo Badbaado Allah ka badbaadi waa galabta Batroolka inta Badbaado cili weeseen horyaalka aan waafakan waa waliba nimanka waa ambitin tan iyo bilow horyaalka heerka labaad ee Serie B Badbaado oo macallimiin ay u yihiin Kanu iyo Abdullahi Agogo wax guul daraa kuma aysan dhicin ama bareej ama iga badinay xasakaafi iyo xulafada kale ay shabaq la gaaroyn markii nimankii Badbaado ah waa ambitin hadda waa isku wada dhibco Badbaado Saxafi iyo Jasiira laakiin kulanka galabta hadee Badbaado iyo Batroolka Badbaado badisay Badbaado saddex dhibco nadiif ku hogaaminayso haddii bareej la geliyo hal dhibco ku hogaaminay haddii laga badiyo waa la wada siban yahay ogowsi Badbaado waxa u sii dhiman labadan koox Saxafi oo dhiman tahay Jasiirana oo dhimanta marka horyaalka heerka labaad ee Serie B xiisa gaar u leeyahay galabta wiilasha Kanu iyo Agogo hogaamiyaan ee Badbaado Batroolka ay ku wada ciyaari doonaan garoonka jaamacadaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir ciyaartan oo qayb ka ah horyaalka heerka labaad ee Serie B marka Serie B sanadka xiisa gaar u leeyahay 3 kooxood aan isku haysto inkastoo baritanka rag kale ay soo gali karaan waxa ku wada dagaalamaya Badbaado Jasiira iyo kooxda Saxafi saddexdaas koox midna way qaadeen midna labaad ku soo bixin midna Serie B ku sii haray marka arki doona yaa Serie B ku haray aragtida la wadaag yaa horyaalka qaadi doona Serie B aragtida la wadaag yaa sakaalanta labaad sanad dam Soomaali Premier ku imaanay aragtida wana la wadaagi kartaa Serie B xalkoodna waa sida man galabta ciyaaraysa ayaa reer jaalayaashu naadiyada ciyaaraha astaan lama wadaagnay ilma macaan ku tiin soo kufa laakiin absolute tani wajig labaad qataratiin gudaha barnaamijka ciyaaraha duura yaalka ku soo gogoynaya farsamadii saaxiibkay Cagta Xaaji anigoo Daariq Sporti hormar leh